ما الله هيو ما الله هيو لو بقول إلا لقى ما أنتم ما الله هيو والله إن أنا هلين أفكي إن أنا اللي كسب حين 200 أنت ماشي كوارك هيو عشان ذا كفيرنا يا 200 أنت اللي قاعد هيو وتسوي ساسحك حكاية بيننا هلو لو بقول إلا لقى أول صوب بقول ما هين والله لو بقول إلا قاعد أنا أفكي أنا كسب حين ما الله هيو أنا دي شغي 200 إلا لقى ما الله هيو نينك أسوق كرنا يسكت أنا وش هالقراية ذي المرة هاي 200 لو بقول مركز قاعدين بايرك أور ريا صباح يعني أور جنبر جابا بردي كفردة جنبر جابا سلام طبعا قاضي بس سؤال إنك قاضي سو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو والله بقول باردي لا بقول لا أركو ولا إن وحوري جبحين سلام تيجيكم بتشرين وركان كهلا يا أمد وليبة أي هذا إني قلت يداني وعليكم السلام سلامتكم مرتك قاضية كنتم كلا يدين دم كنتم كلا ما أنتم ميلا بدل ما أنتم دونا هدي الله يدمو سلامتكم قاضية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلامتكم باوحن كهاك جواب هي جنا حجة مدافع يا ذر وركوا أساسي بقول ما تجناني نوليا نبى بري ويل ودليبا قربها يمد وأنا ويل وشعلا عرض كيسيها هوا مركو ودن كيتشوغين آد بودغارين شري
نربادي أنا ويلكي ولا عاجي صدر لي شري لعب وصدر شيء لا بقول بوصدر شيء لا بقول ما ندافع ما نكاير هذا ما نكذا بيد أبو لا واضح الدقات يعني ورقة كده لعيني ما قرأت لا واضح الدقات الميانا كده لعيني بيد أوكي لا بقول واد مريسان إلى ميدان سيدا يير والله ما بحلها هذين لا بقول قاعد والله أنا هذين ما بحلها أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارد السلام دمانتي waxaan rabaa inaan taariikho hore idinka soo sheekeeyo kadibna waxaan u soo dhaadhici doonaa hadalka dulucdiisa iyo meesha aan u socdo waxaynu aadaynaa madaxweynaheena Mustafa iyo taariikhdiisii baynu ka bilaabaynaa yuu ahaan jira horta Mustafa waa madaxweynaheena balayna yidhi yuu yahay Mustafa markaan yuu yahay leeyahay waa qoloba mali waxaan geli doonaa oon kambeer ku samayn doonaa shakhsina difaaciya ma shakhsina aanu jeedo laakiin shakhsigu wanaagga uu leeyahay nooc dooni baad inaad ka hadasho waa waajib saaran weeyo dadka bini'aadamka xumaanta uu leeyahay waa inaad ka hadasho cabdi baan ka hadli doonaa iyo wuxuu ahaan jiray wuxuu ku fiicnaa iyo wuxuu ku xumaa kadib waxaan soo galayaa Mustafa meesha uu inaga soo galay cabdi meesha uu inaga soo galay taariikhdooda labada nin wixii hore ee kilalka soo maray ay dambeeyaan kuwaasaan ku horeyn doonaa kuwaasaynu gurgurin doonaa waan meehay doonaa deedna waan shaandhayn doonaa haddii aad leedmo si aad ogaataan siyaasaddu meesha ay marayso si aad ogaato waxa ay yihiin si aad ogaato waxa waddanka ka jira si aad ogaato adigu waxa aad tahay taas macna waxay ku sameynaysaa markii taariikhdii hore lagaaga sheekeeyo cabdi ilay wuxuu ahaa nin reer dhagax buura hoggaanka nabadgelyadu noqday dukumiinti baa laga saxiixay shuruudaha TPLF ay wadato in uu fuliyo dukumiinta laga saxiixay cabdi sheerkaasuu galay waa tii ka liftay cabdi in uu dadka laayo inuuna ka dhigo inay nimankii Tigreeg ahaa meel una ka soo laaban karin ay gaarsiiyaan wixii ka dhacay waddankeena waynu isloogeen cabdi wuxuu ahaa nin waxna dila waxna nooleeya arrintan ninkii ugu haysto waad ka hadli doontaa waan soo qaban doonaa wuxuu ahaa nin waxna dila waxna nooleeya okay cabdi wuxuu ahaa nin gumeeyay dadka Soomaaliyeed gobolka u dhashay gobolka ogaadeen khaasatan Soomaalida ma wada ahayn qabiilka ogaadeen ka la yiraahdo ama xaafadda aan ka soo jeedo sidaan isticmaali jiray cabdi dadka uu leenayo 98% waxay ahaayeen qabiilka ogaadeenka dadka uu gumeeyay iyaga ahaayeen because maxaa ka lifay inuu nabaa reerkooda ma ahayn waxay ahaayeen dadka kale ee Itoobiya wax ku haystay dagaalamahayay dadka kale ee Itoobiya la dagaalamahayay ka horjeeday ururkii cabdi meesha keensaday ee TPLF-na waxay go'aan ku gaadheen inay gumeeyaan qabiilka la yiraahdo ogaadeenka taasa waxay ka liftay cabdi dukumiinti inta laga saxay la yiraahdo shuruudahanaga waxaad noqonaysaa madaxweyne waa inaad fuliso waxa yes man waa inaad noqoto waxaan ku diraa waa inaad fuliso taasa sabab u ah cabdi inuu hawlaha fuliyo cabdi weyna gumeeyay 2.5 milyan baa lagu qiyaasaa dadka waddanka qaxay dadka dhintayna 250 ilaa 300 kun baa lagu qiyaasaa ee gacanta cabdi sababtiisa ku dhintay lagu laayay waddanka nolol waddanka kama jirin wuxuu ahaa nin dictatori ah qofkii isaga xukunkiisa soo farageliya dila hadduu qarannimadii Soomaaliya iyo dawladii Soomaaliya ay tahay iyo gobolada maamulada Soomaaliya hadday tahay dadkii waddanka deganaa qof kasta oo isaga xukunkiisa farageliya wuxuu nin kurka ka gooya isagoo ilaashanaya kursigiisa isagoo aan ka fikirin bari wax ayman doono isagoo aan ka fikirin dadkan inuu la dhashay isagoo aan ka fikirin dadkan kada dadka u adeegsanaya inay yihiin Tigreeg isaguna uu yahay nin Soomaali ah taasa sabab u ahayd cabdi heerka uu ina gaarsiiyay waynu ogeyn kuma sii laabanayno gudnimo inta Itoobiya ay haysatay mar walba arinta waan ka hadlaa Itoobiya inta ay haysatay cabdi intuu ina gaarsiiyay iyo inta Itoobiya ay ina gaarsiisay inta kooraysa cabdi intuu ina gaarsiiyay waa ka badnayd dhaqan ahaan diin ahaan dhimasho ahaan dhul ahaan only reason ka kale credit aanu ay cabdi wuxuu ahaa
سواء ده أنا ما أمسنين ودل إلى لنا لكن دتك الصومالية الحنونك وجارسية حتى كوي حرتها هير وحالة جاري عبتي يوح ووطه سب بس إنك لو أجمر هير كاس وجاري قف والباء كبره وله الكبرياء في السماء سماه الآية قف والباء كبره إلهي ودورها هي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم قفكو هدو كبره وقت وحول البليه وحين وقين مدحدي أفريقيا سوق بسطي قدافي برتيرو كدن بي صدام حسين رجع فرتارفتك قدافي وحوها هنيك كبر هيرك وكجاري يري قبضه لبعد تنشر إلا شريطه بتشرو راح يسوي حنا هاي نستوقف كي من القريان برتو كدن بي سوما قرينها حسن مبارك أيضا كأفريقيا وحوق بدن بولها يا ريدي شعب كيسي برتو كدن بي وينوغناي تا واحد قرنيسا توم كادو بوحي إنه ضاعت وهالس ويلكم مركب وبوحي وحاجر بني آدم مرن ونحد كيس دافع كلن طريقنا عندي بدنا نكون عليه عبدي أونلي ريسن كوكوفي أنا وحياة هيدتكم ويكبر تشرين لقوا من أحد قد بتشرين دولكا ما هي نقول إلى أن هي ودنيا إلى هيسو دو ودنيا أي هيسو عبدي وحول إلى أن هذا كشعب كا ودن كدجن يسوي وكذا شيء إلى أن هذا لا هي ودني بوها دولكو إلى أن تشري وان كهدي عبدي وحوها قف دنت السجتي سوته أنا أريجها هي دتش الشيء أو عدوه هذا مسنت يا عبدي أنا نسكو حافظنا ونحافظني ما كنت دفاعي نووي هذا مسنت يا مصطفى أنا نسكو حافظنا ونحافظ كنت دفاعي نووي دتك أروها الله هيو هداد إذنكو كلا قاعدة يسان وحافظ كده جيسان والعبدنا حافظ كده جيسان مصطفى حافظ كده جيسان أنا قال حافظ بيهين لكن وعنكها الله هي ماشي عنكها الله هي وينات إلى فانتو halka gumacyadayda u socdaan waa guriga baar waxaan ka hadlayaa mustaqbalka dadka waxaan rabaa shakhsi walba oo misliin ku sameeya oo dadka wadanka degan dulmi kula dhaqma waxa uu yahay iyo sida uu yahay inaan uga hadlo haddaad waxa fadla aadaysa aday ku taala cabdi aniga hadii dhalash ahaan la yiraahdo niga xigay ma jirin mustafa hadii dhalash ahaan la yiraahdana niga xigay ma jiro labadaba waa laba nin oo ilmaadeen radaya waana xaafada aan ka soo jeedo sida aan isticmaalay language-kayga laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo dadka 8.4 milyan ka dantoodu waxa ay ku jirto iyo hal shakhsi يا بيورتي قالي يا منانتله وعسكله دتك الشعب كا وعسكله كوا الظلمن وعسكله كوا اللي قدول دجالم هاي وعسكله كوا حقه اللي دوتسي هاي وعسكله كوا اللي قدول صعون هاي كوا سا وحي مديهن إن الله هذا حقه ذا الله هذا أنا جو كان اللي دور حلقة قدام بيا يا واحد هذا ما أنت تاجن وأنا سيد حقله السياسة ده يسيد هانشرتي عبد هالكايدك مش وقدام بيا وين سلوجين هبريسي تو وحبريسي وحبذا بيقول عبدي وحكم بريسين هي تشالكا كلها وحنا إثيوبيان لماذا نحن كفارينا إسكرير بارنا هاي بولا بريسين هي عبدي أما هو في هذين أما هو ناكسدين إنكم ما هيسنوا إنك يا عبدي مدنت إن الله يستا مدت كان يقول لا يبغى الله يستا مايا وحالله يستا أرمو باهيسته وكل جن أرمو سيدي تبي ألف أيوة الهرو وش قيسن شرتي بيعدي إليه وهيسته هذا الكيجا إن بدن وحن كهاللي أو أن شيء هداد لا قرن يساري هدي كلامه عبدي إلي هدي أي أور لف يوتيوب يسكون عن عبدي إلي ويسود يدون أورم وين هذيك سنتون هذا الكيجو في الصدى وح كهلان النسوة مالي أو كهلان بتشرو هذا الكيجو في الصدى عبدي وحكومة ريسين هي تشالكا هالكاهينو تشو كيس كيسال كاسم كوعدناي أوكي وحين وصل على مصطفى يوها مصطفى عجيبه كيب مصطفى وحوها نن وشقية يو أنت أديسابا يونيفرسيتي وكقلين شبيه وأنا متعلم ها يس قرال هذا فيسبوك وديجي شري مصطفى علاده كلي عدة وموجين شري وحكي شيء شري وحيا هاين أوركون لف دجال بكل شري سكست والله الله عشر ولا قسمري حيس بدلي وحنا من سنة أنا شخصيا فكرك أنا من سنة وأذكتها هي واختيار إنه جبابه وأنا من سنة هي وقادنا يسوي وقت دير إنه جبابه فكرك أنا من سنة هنا بدله وقت دير بقادنا يسوي
waxaan geli doonaa ururka oona laf iyo qorshe uu ku galay oo niyadana geli doonaa maanta meel lama dhaafayno meel walba agtaynu gelinaynaa khaladyada dhacay oo dhan bannaankaynu soo dhigaynaa mustafa wuxuu tagay Addis Ababa urur la yidhaahdo muxuu ahaa urur buu ka tirsanaa magaciisa baa iga maqan urur buu ka tirsanaa ururka magaciisa isoo qor haddaad garanaysaan waan iloobay wuxuu ahaa niman oona laf ahoo badan oo ina gurxaniya ku jiraan urur ay ku midoobi jireen oo aan dulmidiidkana ahayn oona lafna ahayn bay ahaayeen oo uu ku jiray ninka la yidhaahdo Cagjar UN-tana waa u shaqaynaya qoraalkiisu sida mawjadihii badda badweynta Hindiya bay Facebook u yaaci jireen cadawga uu lahaa ee uu la dagaalamahaya ee uu ka horjeeday Siraaj yes afkaaga Abiyan oo ma santahay naadir afkaaga aan lagu qabay ururka Siraaj la yiraahdo ka mid ah kadibna dulmidiin nima la yiraahdo NGO ya aha oo soo Cabdi Ilay ay isku qabsadeen xilkii oo NGO-yadii laga soo ceyriyay oo iyaguna samaysmay bay iskaashadeen Addis Ababa la isugu tagay qorshaha la lahaa ee laga midaysnaa wuxuu ahaa oo la bannaankay jirtaa Cabdi Ilay intaan meesha ka turayno waan qabsano inaguna aynu maamulano sidii Cabdi Ilay uu dadka u leenahay liyu booliska inuu dadka ku leeyna macnaha la lahaa ee dulmidiid iyo Siraaj ay ku midaysnaayeen arrintaas ahayd garashada ilaahayna siiyay shalay maanta ma aha wixii aanu shalay arkaynay maanta inaan garan weyna ma aha taariikhda shalayna soo martayna waa inaanu wax ka qaadano wixii shalay aanu arkaynina waa inaanu ku salayna waaqaca dhabta ee hadda jira mashar garanaysa 420 baa taagantiin 2kg iyo 1kg iyo inaad gaadhaan wax idin diidaan uma garanhayo waxaan ku hadlayaa hadduna xigmad ahayn ama wax jira una ahayn sheer garaynay laakiin sheer garay hadii kale sheer garay baasha sheertii baa leeyahay ku dhibay okay Addis Ababa la yimid Mustafa horeyna waan uga hadlay dad badan markii aan ka hadlay dhiilasha uu soo galay ee Mustafa uu soo galay waxay dhahaan qabiil baad u jeedaa ayagoo xaafadiisii kala qaadahaya garashada dadka bini'aadamka Ilaahay ma sibin nin walbana waxa isagu u yahay dadka ku saleeya laakiin waxaan idin sheegayaa oo idin cadeynaya Cabdi Ilay iyo Cagjar iyo shacbiga reer ogaadaya oo dhan inayna aniga ikala xigin laakiin waxaan ka hadlayaa siyaasadda dhabtay jirta Cabdi Ilay markuu joogay dhulka ma laynaga qaatay oo dhulkana dad kale miyo ku gurgurtami jiray inaga hayna laayo hayna gumeeyo maya ma dhicin waxaad aragtay iyo shiday waxaad aragtaan jaadka markuu qayla Cabdi Ilay garaabada ka daatay cuni jireen for real meesha laga mato ama waa la muuqdaa lagu muuna leeyahay ama walba saasa la yaa oo meesha lama tago soo haasti ma ahayn digfer haddaad meesha joogayso dhibka aad doonayso aad geysatid laakiin raganimadaada iyo cadkaaga aad leedahay waxaad xaq u leedahay iyo mas'uuliyadda aad hayso iyo dadka aad matasho awoodda ay leeyihiin waa inaad wax ku qabsato hal nin oo isu soo taagi jiray oo ku qabsan jiray Cabdi Ilay xukunkiisa ma jirin haddii ay jirtana idinka ay sheegi doono subax intuu soo dhaadhacaabay kii oo dhan isaga oo barqaamahayay buu intaasoo magacaabay dhihi jiray wax ka daba hadli jirayna ma jirin taas waxay ku muujinaysaa inuu nin waxna dila waxna nooleeyahay Cagjar hadduu ina laayo layntu waa waxa ugu xuneeya Cabdi Ilay inuu kula colownay ma fiicna laakiin cadka uu leeyahay dhulka uu leeyahay taxaafadda uu ka dhashay awoodda ay leedahay inuu dulmiyo oo uu aayar madaxa dhiibto oo shacab noqdo no way unacceptable way wax la aqbali karo ma sagaalka gobol 93 degmo weeye 59 buu xaafadiisu ay leedahay ninka la yiraahdo Cagjar 50 iyo degmo 50 93 degmo ee gobolku yahay 59 degmo iyaga degan u fiirsada hadalkayga population ahaan waxaynu fiirinaynay wiil Cabdi Ilay uu meesha keenay oo Axmed Shida la yiraahdo Axmed Shida anigu ma eedeynayo waa nin cadkiisa goosanaya because inuu ku gumeeyo rabaa because he is a minority hal degmo reerka isagu uu ka dhashay la yiraahdo Gurre hal degmo bay ka soo galaan oo degaan ahaan leeyihiin
ninku hadduu wacadkiisa goosanaya adigana dagaal kugu jiro aniga caabiga ma helayo because mowqifkiisu waa cad yahay is clear and life facebookiisa wuxuu soo dhigahay isbedelka aanu wadna dadka ka hor yimaada ee deegaanka inuu wax sharcigaanu marinaynaa buu uuna qarsanayna oo la taagan yahay oo ku khudbadaynaya oo cagjar oo ag taagan oo ku khudbadaynaya nin raga oo ragannimo leh oo xiniya la dhacadkiisa bannaanka dhigay haddii aan inagu isdilo laba gobol tii calool nugul baa jabtay haddii aan labadeenu isdilo rag hadduu islaayo asxaan laysuma sameeyo okay mustafa waxa dhacay aan idin sheego marka maalmahan oo dhan waxa socday horta ina cagjar ninka la yiraahdo ina shide wuxuu dacweeyay ururka ONLF isaga iyo nimankii itixaadka ahaa ee meesha joogay waxay dacwo ka gudbeen ONLF ay dhahaan xariiq ciidamay tababaranayaan Ethiopiana dagaal bay kula jiraan ciidamo waxa la soo diray ninkii sirdoonka Ethiopia haystay iyo saddex wasiir ina shida yimid ONLF waxa la yiri ina keena la yiri toddoba xubnood labada qolaa la saaray ONLF waxay dhahaan ciidamada waanu tababaranaynaa xariiqan ay noo joogaan waana ciidamada waddanka difaaca xaqna waanu leenahay heshiiska ay noogayn hadaad ka baxdeen cadeeya annagu waxaan naqaanaa doorka ila galo la dagaalamaan naqaanaa haddaad ka baxdeen idinku cadeeya beesha caalamku soo dhax gashay waxa la yiri labadiina kiini heshiiska ka baxay ONLF iyo Ethiopia wixii la isku ogaa ninkii ka baxa labadiina caalamka oo dhan argagixisan ka qoraynaa dhaqaalaha adduunka oo dhan waan ka soo xidhaynaa waa Ethiopia iyo ONLF arrinta ogaada ONLF waxay ku dhahan Mustafa haddii uu jiro bareeshar cirka ka haysta Ethiopia bareeshar ka haysta hadduu jiro annaga dhil la galay annaga Ethiopia challenge garaynayna annaga beesha caalamka nala joogta hay'adan oo xilsaaran ba jirta mas'uuliyadda annaga iskale annaga ka jawaabayna haddii ay jirto annaga na weydii haddii kale go ahead iska celi rag haddii lagu yiraahdo lagu yeedhiyo diid shuruudii iyo ahdiga aanu galay bay ka mid ahayd ina cagjar waxa la siiyay awood super power oo la fadhiyan garabkaaga nahay go ahead ba lagu yeedhi laakiin dadka ilaahay baa abuuradee shakhsigu dadnimadiisa ku meel maraa cadka aad leedahay iyo dadnimada ilaahay ku abuuray taas shaqeynaysa laakiin macna ma sameynayso haddii ONLF shirka ma fadhido shirka xisbiga waxa fadhiya Axmed Shidiye waxa soo fadhiya Mustafa Axmed Shidana barqin buu daaqay ilka intuu saa ugu qabsaday oo uu rugay buu tufay Mustafa waa ka adkaaday hadda arrinta weyn ku sheegay qabso Mustafa wuxuu inay shida wuxuu soo jeediyay 32 qabiil oo gobolka dega hal qabiil oo kamida weeye ogaadeen 32 marka loo qaybiyana hal qabiil buu noqonayaa period taabadalkeedii Mustafa wuxuu yiri degmooyin baa lagu qaybsanayaa isjiijid badan waxa la yiri degmooyin baa lagu qaybsanayaa laakiin hadda se loo qaybsaday wax 13 baa laga dhigay guddiga fulinta xisbiga that means Mustafa waxa la yiri doqonta xadhiga lagu dilay iyada xarkaa ku suxulada ku wata 13 baa gol laga dhigay 13 ka markii 11 gol min hawl laga soo saaray maxaa soo haray laba xubnood labada xubnood laba gobol oo kala loogu daray sagaalka qabanqaabada dadka keenahaya ee guddida soo xulahaya fulinta sagaal baa laga dhigay afar waa ogaadeen shanta kalena waa yamyam iyo qadaad weyn that means ogaadeen kuwa minority waxa la isku raacay oo meesha la soo dhigay oo lagu sareeyay ogaadeen population ahaan dadka gobolka dega 30% weeye is that right 11 gobol 7 gobol ninka degay inuu 30% yahay ma macquul ba aqliga bini'aadamku ma qaadan karaa maya boqolkiiba waxa la yiri ogaadeen deegaanka waa 30% taas oo cadeynaysa 70% dadka kale inuu yahay oo 3 gobol 70% ay tahay kind of bullshit unacceptable wa ina shida ninka soo jeedinaya arrinta iyada waa wiil hoog xiniisa banaanka dhigaano waxa la yiri ogaadeen 40% dhul ahaan markii la yiraahdo 40% buu ka degaa dhulka toddobadii gobol ee ogaadeen uu degahayay ugu weyneed gobolada Soomaalidu degto waxa la yiri 40% weeye saddexdii gobol afartii gobol kale oo jidwaaq ay ku jirtana waxa la yiri waa 60 waa minority another minority dhulkii minority baad ka tahay
population kiina ma yaad ka tahay. That means guddida hadda la leeyahay gobolada laga soo doorto magaalada Qorraxay oo xaafadda degta ay hal xaafad tahay waxa la keenayaa nin kale oo hal qoys oo ku dhex jira la keenayaa waxaana soo xulahaya xubnaha sagaalka ee loogu talagalay inay xulaan kuwaana ogaadeen ku minority ku yahay iyaga loo codeynaya iyagaana keenaya hadalkayga aad u fiirso siyaasadda hadda la haysato dhulkii minority baad ka tahay populationkiina minority baad ka tahay guddida soo xulaynin sayna minority baad ka tahay afar waxa jira 7 urur hoosaad guddi hoosaad oo la sameeyay 7 guddi hoosaad ee la sameeyay hawshantada wax ka qaban haya gudoomiyaha iyo ku-xigeenka mid ogaadeen ma laha another minority saasa lagu yeeshay qalinkana waa lagu dugay Mustafa Saxiib baa lagu yiri Ahmed Shila ku yiri Saxiib baa lagu yiri qalinka uu ku dhuftay muradii wuu diiday kulaha ninka isoo qoray Cabdiyare jiga waxa yaal ku laabo wuu diiday ma waa la saxiixay taas la isla qaatay taas lagu soo xulaaya hadalkan inaga dambeeya ha weydiin hadii wuu diiday lagu yiri baan baa lagu sheegay adduunku sida uu shaqeeyo ma gobolkan deganahay adduunku sida uu shaqeeyana ma population baan leeyahay laakiin adduunku wuxuu shaqeeyaa qalin baa la isku dilaa qalin baa lagu dhaxaa miska wax lagu qaybsanayaa hadii population majority minority hadad ka noqoto you gotta go ugaadha sideedii aad banaanka tagaysaa waana lagu karbaashaya nin asxaan ku sameynay ma jira asxaan isuma sameeyo waa inaad arrintaas ku dhaadhacsanaato taa markaad ogaato waxaad ogaanaysaa waxa aan ka doodahayo waxa uu yahay laakiin ogaadeen majority oo Landeer yahay saddex wadan buu dagaana inuu Landeer yahay ku qoray laakiin Ethiopia dhexdeeda maanta you are minority ما قبل laga hadlaayo hebel down waxa soo qoraysaan ma qabil laga hadlaayo waxa laga hadlayaa siyaasad mustaqbalka inagu aynu leenahay ayatinka iyo meesha aynu ku dambeyn doono way waxa laga hadlaayo sheergareeya niyo waxa laga hadlayaa taa way sheergareeya ciyaarta gashay degaday minority waad ku tahay waxayna cadeynayo inuu marxaati ka ahayn maalinka wuxuu yiri dibi 3 dibi baa soo raacday laba dibi iyo libaax baa saaxiib ahaa dibi wuu cadaa midna wuu madoobaa 3 dibi baa mid wuu gudubna midna wuu madoobaa midna wuu cadaa iyo libaax baa saaxiib noqday libaaxu deeyblaan ma joogi kare kii madoobaa iyo kii gudubnaa buu yimid wuxuu yiri ninkan kala cad waa target cadawgan ugu soo fiirsanaya aan dhaafiyo wardil baa la yiraahdaa bil cadaabka la dhaafi ila waa la siraya libaax waxa weeye waa very intelligent way waxa la cunay wuxuu cunay dibiga cadaa ma dibiga markuu cunay oo hilibkiisa dhameystay maalmo uu ku mooday wuu gaajooday markaasuu kii cadaa gudubnaa buu yiri baalkan madow target way aan dhaafiyo sayna dhaafi buu yiri kiina markuu cunay oo hilibkii dhameystay kii kale ku soo laabay markaasuu yiri ila laba nin weeye markaa laba dib iska macni karo libaax wiraada ogtiin kala mooyaane laakiin hal dibi awoodiisa uu ka khatarsan yahay ilaahay awood buu siiyay mici saakada iyo kamaanisiin leedahay buu yiri maxaa kula quman labadii hore maalinka cuntay kii caday oo rii maalinka cuntay baad aniga cuntay buu yiri نقاش سووا على هو كسوي دونا هدي الله ما ضاق باريس عبديار هو كسوي دونا هدي الله يسورت جيم كي قدام يستي داد مينس مالك يخرج فكرك حد الشيء هي بقول كيف الصدن إن كتاي إن ببلشين كتاي بقول كيف أفرتنا كتاي عكسروا من سيهاي وحنا هيا أنا أقول إيش جايين خرجي وكلها اللي ويري بقول كيف inta ku qabsadeen leeyahay waxa aad wax qabsay waa maxay uu yiri imsaynu boqolkiiba kana wadanka ee la yiri intaasan ka dhaay uu yiri sidan aan ka nahay sidan hadda la sheegay buu sheegay cagta ragii ariga la kulmay baan aniga isma qalay ee arrintan ka wada hadleen waa fikir isagu waa misay waa fikir isagu u dabacsan yahay waana fikir yaa keenay maalintii uu ka imanayay aan la dooranayay ee laga soo doortay عدي لي هدي ديل لا قلي هشيس لا قلي maxaa diiday ninka adiga ku gumaysanay inuu cagtarna dhiil la galo dhiil baa jira cagtar dhiil buu ku yimid dhiilka oramo ku yimid oramo u yeedhinaysa waxa ay dhahdaan ma daba mari karo Axmed Shidana jaajus oramo ay soo dirsatay oo ay ku shaqaysanayso hawshiisana fulin hayo weeye arrinta Addis Ababa
connection ka isku xirahaya ee arinta u kala gudbinaya ee amarka bixinaya waa ina shiday agtarna ma dawo mari karo maxaa markaa soo dibila haduu diido cirka miyaa soo dibila waxa giisa intuu ka soo dibilo dhulku soo dhici lahaa maya abshir al-Jigjigawi wadaxaysa hooyada iyo handikaabadii ku dhashay wasi bax giraan haan bax asal iyo asal ku dhalay baba leedin badii 130 hadii lagu siiyay waxa soo kala daawanay 390 qof oo aan bloogay baa shalay blogga ka furay wixii baa igu soo baxsaday 390 anigu aan bloogay baa shalay sii daayay oo Chelsea أحمد شده نكلا ينادى عكتر وحاكي ستورم أرنت أي فليين وكور شيء مو يالو دي شكذا إسكيلو شكذا وحاوية وحنا وحاينا وإنه تعالى يا سومالي ذا كل شيء وحنا وحاوية ذا ريالتي حقيقة نفتا عكتر وكسر لسية عكتر أورما كان ستيسير عدي لي أي نوجو جماعتي أي نوع كنتي ولي ووان باتشرته باش عالم كون لفوله شيء سياسة واحد يكبد شيء لكن قرشوا هو عكتر إنه ضد كلو جماعة قرشوا ساسوا أنا صاروا في سنة ما هرنا كلير كذا هي لكن أكشن كأي مقدار شيء هي وحين وقين در هيسوعن يا هيسوعن صاحب ساعد الله يبوعه بلوك بات هذا تسوي على مرتبة موقع والله وانكو بلوك يا والله هذا تسوي على مرتبة هيسوعن أوكي هيسوعن اوكي جامعة جيجيغا inuu cagtirtay bay noogeen dhalinyaradu waxay aad uga cabteen jigjiga jaamacada ka dhigta Soomaalida in Etoobiyaanka la dhaafiyo wuu tagay cagtir wuxuu yiri oo fiidiyoyada aad ka daawateen Etoobiyaanka na dhaafi weydin kale idinku Etoobiyaan miyaydaan ahayn Etoobiyaan manin waa dhageysatay maan u malaynayaa su'aal kale weydiiyay wuxuu yiri haddii Etoobiyaan ahayn dhulkana joogtaan soo Etoobiya ma aha xoog bay nagu haysataa 100 sano oo dambe hadayna haysatana xoog bay nagu haysataa laakiin Etoobiyaan manin mana noqon doono Soomaali baanu nahay language-ka uu isticmaalayo u fiirso waa madaxweyne هذا لا اسمح يكون عدينيان ujeedadu kala ma cadeyn karo inuu iyaga qulubtooda baadhayo wanaag iyo xumaan waxa ay ka aaminsan yihiin Ethiopia iyo meesha ay taagan yihiin uu ogaaday inay way dhici kartaa laakiin uu hadalkii ma sheegaya in uu Ethiopianimada ku tashkiirinayo hawsha watana way dhici kartaa macnayaal badan baa loo fasilan karaa laakiin kuma dambaabi karaa anigu arrinaan anigu xaqiiqdeeda haya ma aha taa weyn slogan onlef waxa laga hayaa oo kale أنا لفت الضوء حري فرتي قويتانا ويامسنتاي حسب قد حديث كيري أسبوع ما كسور ريكتا ما دور بريبان مرينا هذا الكاسنا وهذا الوين بيتوبي وكدر هاي وطاشكو كيفين هاي أنا لفينا حري فرتو ديدنا ما معنى كلها تانا مؤجي أنو لكن لا قويش واستعماله يفصله أذكر بأغلى إلهي دوكسي جست أدون تقول هذا تانا وكو هذا أنا وحيالها أنا أركين يده فيديو عن دعوة يحكت نبتة مدحتوي هذا تيجتها الله وحنا المسجد بيو أنا وحكت أنا هي وأنت كل ما وحنا لقى نادي عينينا أنا قاوني قليني بنا آدم بانها أنا شخص بانها ما بينا خلدنا أو ما بي I'm right أما أنا صحسنها أما أنا خلدنا جيت أدون تعذوب فصل لكن شخص بانها فكر كانوا وح أنا من سنة هي وح أنا مسكت إذا كتيرنا كل بنين لقى بانها يمي عبدي لي تكرابا إنه كان إنه جمادان أو يسمعوا هذانا يقرشوها وين العادي أكثرنا أورما كانت أكثر إنه أورما يسمعوا نقدم حد ده هي مين حروني مايا سجن أورما كانت كيكرا لكن أنا مرة والبنا ما كل الله بعض السيستم بكل دونا نمكي تبي ألفتو نمكي برسان وضد كورن لاين هي هاين أورما هات أنت وات أنت ضب اللوضي وحضر ما لنا صدقال كم بويا لا تلقولات كسر إنه أورما أنا كم بدي سنين أساس هذا مسنت واتقال بديسين واتقال دولة أورما ذا كسر واتقال ضد كل جوبه هدينا هي واتقال ربنا اللي نلقو قبصده واتقال ربنا
وحال الرادين هي أنكو شجع برك بجاها جفر سجاش اللي أفرتي بارلو سوتاجنا صدق يا طبعا والله سميه أو قلوا والبا هل نقبلكم كشجع بأوروبا لو سميه سيلوغا ديجو حافظة iyo ururka ONLF xaafada loo tirin hayo in ay noqdaan minority heega loo oran jiray heegadii maanta waa heega kale meesha ku dambeeyay waa inuu slogan oo marka dagaalka bilowday dagaalku adkaaday Ethiopia ku waxa weeye ninkii waxaba wax ku tari kara boqolkiiba 60 man ka dagaa saaka sagaar kama biirsan karto for real aqada wax mar Ethiopia ma tari karaan wax mar ku biirin karaan for real ninka gumaysigu muxuu yaqaanaa ninka dhariga ku haysta ninka awood sheegta ninka wax difaacaya ninka wax ku haysta ninkaas u tixgeliya malizana wuxuu go'aamiyay nin aan waxba tari karin kulligoodna uu radi isagu sameeyay nin walba daaqadu kala baxay uu raaciyay nin iska fadhiyo yesmaana adu hadad gumaysatay wax ku fan lahayd maya ka isaga ay walaalahayiin adiga kula dagaalamaya kaas wuxuu ogashay labada xisbi baa kala duwan caalamka wax ka bedelay oo kala bedelan oo la banaanka jirtay inay jirna saaka oo la faday banaanka jirta maxaa dhici lahaa oo xabad wali dhacayso Mustafa Cagshir la dagaalan baa la dhihi lahaa no doubt khasab ku dagaalami lahaa taasuna inuu la dagaalamana waxay noqon lahayd oo la fil isku ugaarsaday noqon lahayd arinta ininki diidan oo aday ku taala laakiin haddii oo la maanta xabad ay riiso duurka jirto oo cabdi la sidii ay ula dagaalamayaan waxa khasab liyo booliska in la adeegsan lahaa laguna shaqaysan lahaa dadkana la dagaalan la dhihi lahaa taasa dhici lahayd taasaan jirno meesha ka baxday beesha caalamka oo kala joogto oo shidaalka ogaanaya u socota oo la fiyo Ethiopia ku kala dhex jirto oo tiri talaabo qola qaadi karta ma jirto awoodii oo la faa way boqofilee awoodii oo la cabdi ilay ku ogaa cabdi ilay baa lagu ogaa cabdi ilay iyo ciidankiisa baa baabiyay laakiin haddii maanta oo la fay dagaalami lahayd muxuu noqon lahaa Cagshir adeer dagaalan baa la dhihi lahaa difaac wadankaaga war ku khasbanaan lahaa iyadoon bari ahayn wadaniyad kasta oo ku jirta inuu sameeyo ku foo khasbanaan lahaa ma jirto ur dagaalamaya maanta maadaama inuu jirno ur dagaalamaya in uu si xaqa wax u qaybiyo oo isaga aan lagu tumanin arrintan markaan idin sheegay khatarta ay leedahay xaafadda isagu ka soo jeeda waa minority sidii la doona laga yeelaya isagana saacadii doona la caydinaya because he is a minority cod baa loo qaadaya xisbiga hadduu ka fadhiisto he gonna go mana diidi kara dee sharciyan weeye xisbiga caydin kara marka yaa ku hayn kara meesha isagaa isdilahaya reerkiisii buu dilahayaa oo dadkii isaga garabka u noqon lahaa fiiri laandheera haddaad tahay adigu dhulna aad ka dhagatay majorityna waddanka aad ka tahay dadka adigu aad tahay baad wax ku tahay maxaa dhici lahaa maanta hadduu diidi lahaa oo dhiila ma yeelahayo anugu raganimo gobonimadu waa u dhalasho ma yeelahayo waan ka tegi karaa laakiin ma yeelahayo waxaan qaadan karaa unacceptable ma soor quudheed sad quudheed waa la qaatay laakiin soor quudheed lama qaado ma yeelahayo waana iscasile xilkaana idiin tiriyey cirkay doonaya la aadeen xabad baa bilaaban lahayd waxaa lagu khasban lahaa xaafadda inay majority noqoto okay taasaa dhici lahayd qaar ba waxay soo qorayaan FIFA reer saaqiya reer hebeliyo anigu reer saaqiya reer hebeliyo kama hadlaayo niyo dadka buka ee meesha wax ku qorqoraya loo baarayno anigu reer kama hadlaayo annaga reer saaqaniyo waxaanu ka hadlaynaa meelahaanu ka hadlaynaa fahn haddaad wax fahmayso waxaan ka hadlaynaa adaanu kuu doodaynaa adaa dulmanaa adaa minority ka waddanka oonu kuu doodaynaa hal shakhsi oo isagu xil doontay baad inaad u doodan rabtaa waxaadna rabtaa dadkii uu ka soo jeeday sidaada markaan kuu raaco oo malaayiina inaad adigu dhulka gelisay baad rabtaa which is waa kind of stupid ninka soo qoray reer saaq waa daciifow language-ka Soomaaliya Yuusuf Xaaji ninka la yiraahdo mar dambe aniga qabiil meeshada lagama sheekayo reer saaqna waxba kama sheegi kartiin aadaro okay reer saaqaniga waxba kama sheegi kartiin aniga waa reer saaqana okay anu qabiil kama hadlayo reer saaq ma soo qoray language-ka Soomaaliya Yuusuf Xaaji Faarax ninka la yiraahdo okay dinka la blog batay mar dambe hadda language-ka ku hadasho annagu reer saaq iyo reer Cabdillah waxaad caloosha idinka buuxa kama hadlayno annagu dad siyaasiyiin oo mustaqbalkanagi gacanta ku ayaanu ka hadlaynaa inta haddaad fahmi karin God lost brother
waxaan ka hadlayaa adaan kuu doodayaa hay soo wicin ilmaada rayaalow aan arrin isla fahanno live-ka markaan ku jir layma waco aniga layma waco markaan ka baxana waan ku baroogayaa haddaad soo wacdo calankii Soomaaliya wataa ninka hadalka ay qoraya reer saaqna maaha reer qolo kalena maaha anu qabiil kama hadlo ma aha reer saaq ninkaas aniga waxa ay qoraya waa in gumeed oo dhan ba meesha ku jira 300 iyo above shalay ka furay xarig ayaan ka soo daayay oo wada blognayd walla gacantayda blogga say u taqaanaa idinka daran haddaydan afkiina hagaajisan anu waxaan ka hadlayaa waa mustaqbalka dadkaas عبدي إلى سيدا أنو نبعين أنو جبيه أنو تمر بانو أولا إنه أولاد دجالين ما أولاد دجالين نك الصوم مستقبل كنا إنه كعيار الربا because قرشة ياغلي إلهي نسيه ما هي أنا كنت أجر الرحمن أنا إنه منورة تكون قنانا ما يوسف نكلي ده هذا بلوغ ليله يوسف غفيرية يوسف غفيرية يوسف كاوان بلوغه يوسف أنا بلوغه يوسف يكادي إيكاد يوسف عن هذه يسوع واحد رالي هذا يوسف حاجة سماها أتيجي صادر أباها يعني كاب كاتاي ووس كده ريال أربعة من تبص ولا أمانة يوسف حاجة بكله حاجة يا جماعة أرنت حاجة نبتة واسدة language وحيالها إنه مقدار إنه أرجنا يفعل الله إنه أركي إنه هذا الله وردة جامعة دلية هذا الله وشيء هي ولا فكش هي وحيالها سوي ما قنعنا عنيها على مدى دينا وينو أرجنا وحد قرنا يسا أنو أول ماشى صار دكتور كان كذو لما أوبشن بارسكو هيا كرتني نور نشاء عد كرم معها وعد كيسو قرصن كرا وأنا فلي ما فلي وي that's what I believe أنو يرفلي يبان مسناي من آد فلي وا أوركس كعلي تشيلي هاي بانو مارين أود أديك أقوله عيدا نضو هايستا أضو مامر كوكب الكايستا ويلير أو أف صومالي جا هذا هي أحمد شداد إلا هيو وش كان بالشين حتى رئيس أكفلون سياستنا ولا إسكوديلا ولا إسخارجية سياسة ده السنيش بالإسكوديلا السنيش بالإسكوديلا وان بولاد باكو في الويل خيك سؤال هاي ولقوا أمسيو عبد المجيد بسوق يا ذوقيدين يو عيديو برتي لقوا قراعة ذوقيدين أرسل برتك كذا أنت لو وراني وعيدك كتابي وأنا تاجي برتك أنت ويل بس رئيسك غيره كوش باحي محوي هاي مركب عيد محوي هاي أين الشدة محوي مركب إيش هذا سجاشن إيه أفرتي بيتاجنتها وتشدد إثيوبيا أورامو ترى حاول يورن فتح على غدنا بناك هذا which is a kind of bullshit وأرين سياسة ده ويارين ترى ما كلفها هي majority كده كها أورامو إلى نهضة إذا كان minority وين الشدة وسادك سد هدود دي اسم مدحوينه هنا مصطفى معركة سودو ما هي معركة سودو ما هي هذا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نفر بوقت غير هذا معركة سودو بلا ما يلا نانو والله بالله تالله هدي توبيون أنت سوتي ما دو it ليه هذا حل كان ترين لا قبصة عندي لا صاحب ما يلا وحمان تصدق هي واحد شرع نغني واحد تاريخ ذي قلها هي وواحد هستوري قلها هي بريو حلو يقولوا ده الشارع بركو وسير هذا كوي لا تو وسير وصدق قبل سي حافظ دودي وسيدات قبل أنا وتدو ولا وتدو وسير سي that's the point ودي بقى عداتي الشارع خلت كل سبي ما أنت مسح كره يقعدوا ناثين الشارع بدو يستين سما واحد وشد هنا أكثر والله إذا كبار اللي قديه الشارع وحيد عيان وأكيد هذا هو بيش يلا شلي سيد ما أنا لا شرع بينه قريسة ما أنت برينا شرع كلا توي سنة ديال إنه هل يدكوا جرو سيد جيلا بيدا با بينكم مش والله قراءة ما أنت عارف كذا إلهي من قدرته والله قراءة هي إلهي من قدرتي والله قراءة هي ولي والله ما قراءة عفات كي والله كت عندها سيجرنيس على كلي
dadka ilaahay baa abuuray laakiin inuu dad baan abuuri karaa walla waxaan damacsanahay iyo tolkii wuxuu damacsay waa kaafi kala dheeri ya jalka hadii la geeyo fiiri jalka markii la sheego hadii aad diido jalka lagu geeyo ma jalka hadii la geeyo micirka soo dumaayay يسوع قرآن كان نخريه فاطمة طيبة كما هو رعاها شركي لوجو شري وصعدا شركي وصعدا لكن قد بدل لوجو شيء يسدا وحي نقرنا يا والله صحيحي هذا رنت وقت يداد وجيم والله صحيحي سدا أي نقرنا يسو بقرار بمجرد أنت كتاي أود سدا أي نقرنا يسو سدا وحلاق يبصر هي وحى والله يسكو أفكار توار الله سعين توار فند هدي لو وحده معركه سودمي ميشال markii la rooshay umeenu yaa hadii la xido muxuu Nasir Mandela imsan u xidhnaa hadii lagu xido macirka soodimaaye ya oo sharaf ku dhimato oo waxa xumaan aad diido oo dulmi diido taas way naga maqan tahay dulmiga inaynu diidno aniga in la xido oo dhinto iyo aniga dadkaygu inay gumoobaan ka ya mudan anigu adduunkan dhaafo because la yastakhiruna saa'atan wala yastaqdimuna waqti waan dhimanaya boqorka beesha gaadsan midka u qoran tahay aan blogayso oo iyada ay gaadsan boo sanagad in gumeed ku dhalay boqorka beesha gaadsan muu noo soo qoranaya والله أنا نرجع حوار سنتين والله وحنوها إن لا يصلح أفكار تسدى وحلو قيب صدق بقول كيف صدق إن أتكتهاي ماجورتي قبل كأوجد أنت تكدكن بقول كيف أفرتنا دولارات كتهاي لا بدو إن ماجورتي كتهاي قد يدل النساء سجال كا السوق هذا سحبنا هنا السجال تهاي سجال كنا أفراد كل هذا ماجور ماينورتي تهاي حكون من هذا واحد يريد يسيشك meelaha la iska dilay meelaha way mise waxa sagtay lagu dhawaaqay raftay marka lagu dhawaaqay sugayna marka waad ka hor dhacday baad leedahay dad badan oo idinka marka aad sugaysaa meesha wax lagu kala qaybsanayo wax lagu kala goosanaya iyo meesha wax ka dhacayaan meesha tada weeyaa dad faansantahay hadii kala warkii ugu dambeeyay madaxtooyada laga soo siibaan lagu kula hadlayaa ma aha anigu waxaan ku shaqaalayo haddayna warhaynin raadiya fikirkiina ilahay ugu salaynina anigu reliable information baan idin siinayaa أحمد ديب أنا أخلاقهم هذا أركها يسكننا بلوجه هاي عندي كيف كل لوس بح بح كوسي بح أنا أخلاق حميدة حريان اللي بنوجي مثلا أنا بيجرين يطلب كاسونا في اليدين مختار كان قوي أنا بلوجه إنه قبيض أنا ما ماشي كتير خالد باني كسر صار شلة أنا كل عليا ماشي مختار نيك اللي يدان هذين يسوع كان هلا يسوع كان ماشي كلاسيفية فيسبوك يجي والله إسكو هاي قبيض أنا بسوق على ماشي نيو كادية أنا الناس هانو ما سمين هاي وحي قشنا هذا ويتجه هياني مختار نيك اللي يدان قوي يسوع كادية نكان هلا أنا نهيل ما بهالله هذا اللي جواب حيا ما أنت نيجي كاستم كي قديبه أما فلقات اللي يماده والله وتجي إلهي بيجو ويصبح دونا والله ودونته هانديكاب وبحار مرين marka hawshu sidaa weeye ogaadaya halkaas maraysa ogaadaya xaaladeedu halkaas ka dagaysa waan soo qabanaya topic kale ma gudbiyo maanta warar badan baa jira Jubbaland warar baa ka jira saacadaha soo socota in bu'aala lagu kala samray la suuhaya Axmed Madoobe safka hor jooga ciidanka isaga hogaaminaya tuutu qaba wararkaas jira إذا جاء سوقته إذا جاء سوق غلطة سوق إذا جاء كاميرا فرو أما كوبه سوق صعد صدا وأنا سوق من صعد صدا dadka dhawaan balooga yaadar anuu shacab baan shacab igu filan waan ogahay inaan shacab helayo
wixii akhlaaq xun oo dhan uma baahni ninba wuxuu soo qoray dadka oo dhan hadaad baloogtiya ku soo gali qof allaale qofkii af xuma la yimaado waan baloogaya asadow aan kaamirada fura kaamirada ama ninka la yiraahdo qabso مسكينك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمه ورادة رابية والقبرسات وحفات كور ميادي دعينيس ورتعو هي باي أول قاديل والوالود عيون بالورن وحفات كور رساتة انا راد ورادة باهودا يا باهر يا وحن يا قبيل كلا غشة كاين تتكتت كديسان طب قبل هاي لا أنت تكعب ستان ميديا مارتا سوانا كسبوس هذا قولون نو سلام هيرا waxaanu ka hadlaynaa inaad ka hadasho isku day haddii kale indhaaf cumar cusmaan ninka la yidhahdo soo gal qabiil baad ka sheekeynaysaan buu ku leeyahay annagu dal iyo siyaasaddii baanu ka sheekeynaa qabiil baan ka sheekeynaynaa ayaanle waan ku salaamay waa kaa qaaday inaad ersee tahay waxaan horta wada salaamayaa dadka meesha ku jira waa inay bartaan facebooka iyo xifaaltanka iyo dooda iyo qofka mowqifkiisa wuxuu ku adkaysanayo iyo waxaad uga jawaabayso inaad ka shaqayso weeyaan anu waan ogahay inaad tahay anna waad ogtahay inaan nagasho ahay mowqif baa inaga dhexeeya waxaad doonayso waan diiday waxaan doonayana waa diiday waanu doodi karnaa laakiin dhul baa inaga dhexeeya waa inay taa fahmaan si fiican inaan haddaan halkan cay kaaga soo qoro iyo haddaad ii soo qorto wax macno ay samaynaysaa ma jirto intaana waan la hadlayay kuwa la bilow garaynayo si fiican ujeedadayda anu soo noqdo anu mowqifkaaga si fiican baan u aqaanaa maalmahan waad maqnayd xitaa waan ku dacaayaday waxaan ku idhi waxaan dadka ku idhi dhakhtarku ku maqan yahay madaxaa xanuunay axmed shida awgii waa kaftanka guud ee ka dhexeeya facebook waa gartay laakiin mid baan kaaga digayaa anigoo sidaad u doodo waan jecelahay horena waxaanu yidhi mataqaanaa 10 sidaas hadduu ogaadeen leeyahay waa lala heshiin lahaa ama wayna qabsan lahaayeen period ama soo kooban laakiin waxaan kaa diiday mataqaanaa afkaaga maaha nin dawladdu shaqeeya oo Soomaaliyeed dibtiisa iyo maamul xumadiisa iyo wuxuu dhan ka hadla laakiin isirkan iska daaya ad nin Soomaaliyeed oo ku faani karto oo aad oran karto uu khaldan yahay sidaad u leedahay baalkiina casharba uu khaldan yahay aad u leedahay axmed shide cid ka hor jeegsanaysa ma jirto iyo khaladkiisa markaad soo bandhigto laakiin intaad naga qaado haddaad ku xarayso oromo waa dhib kale leedahay mugtahay taas weey horta aniga doodaydu inta badan waxay u badan tahay adana go'aan ka doona waxa kaloo jirta markaad ninka diido waxa fiican dhulka aynu joogno sidoo u shaqeeyo waa taqaanaa maalintii ugu dhaweyd ee aan kugu soo dhawaaday waxaan ku jiray 50 mile maalinad gabadhu campaign gareynaysay xamar joogto oo laga dilo ay geeri ku timiday si lacaga ma ii iman kartaa baan ku soo qoray daacad bay inaga ahayd laakiin ma helin message-kaas waxaan ku soo qoray meesha Chase Bank wax liima ku jira si aan transfer ugu sameeyay maanan helin jawaabtaana okay meesha joogto waan aqaanaa meeshan joogo waan aqaanaa waxaan diidanayaa afkaaga hebel waan tooganaynaa mar dambe saaxiibow ha odhanin ma dhiran waan tooganaynaa u fiirso okay ma dhiran waxa weeye axmed side haddii la xidhayana ragga la xidha buu ka mid yahay haddii la eriyanayana ragga la eriyaday ayuu ka mid yahay haddii uu meesha sii joogayana waa wax ilaahay qadaray hadduu tagayana waa wax ilaahay qadaray laakiin aniga marka la yacaayo ee wax walba la igu samaynayo magacayga cumara inta la iga bedela haddii axmed la ii bixiyo tiinu axmed ceeb lahayn dawaan ka xanaaqay waxaan leeyahay warda ani cumar baan kusoo dhashay waagar dee cumarkii ha la igu yeedho wixii naanaysa waa halkeeda moogtahay okay su'aal baan halka marka axmed sida haddii loo bixinayo axmed oromo oo naanays looga dhigayo waa halkeeda laakiin oromo maaha waxyar halkaa marka maraysii kaadi waxyar halkaa marka maraysii kaadi aan su'aal ku weydiiyo ficilada inoo muuqda gobolka mooyaale wixii ka dhacaya waad ogeyd gobolka uu ka soo jeeda axmed shida ma taqaanaa horta si fiican baan u aqaanaa welibana waxaan aqaanaa reerkooda dhan baan aqaanaa macal aabihii baan aqaanaa gobolkuu ka soo jeedaa
magaalada Nagayla ayuu ku dhashay marka hadda sida wax loo goboleeyay gobolka Liibaan waa nin dowladda federaalka ku jira waana wasiir awood kale oo weliba wasiirka maaliyadda dhibaatada arkaysa ee dhacaysa ee dadka Soomaaliyeed ugu xasuuqahay ee nag laga dhigayo Oromba ay ku xasuuqaysay isagoo ka hadlay weliga maarta maan arkin laakiin jawaab baan u hayaa sida aad u hadlaysa marka aan anigu nuxurkeeda qaato isagoo Soomaaliya oo halka noo jooga muxuu damqan waayay garbaad ugu leedahay wax yari kaad Soomaalinimadu ma aha calaamad dad qofku ku dhagan dad waxa weeye waa ficil Soomaali dad u dhashay oo badan oo Ethiopian aaminsan oo Ethiopian baan nahay la bajira oo aan aaminsan Soomaalida oo ku abtirsan haya dad Soomaaliyeed oo jaarsan la yiraahdo oo aynu ognahay inay Soomaali yihiin oo ma u baahan Soomaali Oromo nahayna oo dagaal kula jiro kuwa Soomaali ah baynu aragnay صح marka Soomaalinimadu ma aha bari inaad u dhalatay ma aha laakiin ficilada inoo muuqda ma waxaad aaminsan tahay Axmed Shide ama uu inaga dhaxwalay ee deegaankeena ka dhaxwalay inay foolo Soomaalinimo yihiin baad aaminsan tahay may aanu soo noqdaan arrinteedana dhamaysto jawaabtaada waan ku siinayaa marka ugu horeysa horta dadku ha fahmaan wasiirka arrimaha gudaha ee Itoobiya ee federaalka ayaa u xaq leh inuu ka hadlo wixii Itoobiya gudaheeda ka dhacaya ma aha Axmed Shide oo maaragtay wasiirka maaliyadda yaan la isku khaldin sababta Dr. Cabdiwaasac oo isaguba federaalka ku jira hadduu ka hadli waayo Axmed Shidena ka hadli waayo labaduba way eedeysan yihiin Soomaali ahaan maadaama ay u fadhiyaan kililka Soomaalida ay federaalka ugu jiraan yes su'aashayda labaad federaal raggeena ugu jira ciddu dooni ba ha ahaado meeshu dooni baa ku jiro dhibaatada gobolka ee laga soo doortay inay ka hadlaan xaq ma u leeyihiin mise ma laha wasiirka arrimaha gudaha ee Itoobiya wuxuu matalaa Itoobiya waana federaal dhibka waxa ku sameynaya dadkana waa federaal Itoobiya weeye inuu ka hadlo oo xaqa ay leeyihiin uu ku difaaca af xaq ma u leeyihiin mise ma laha waan kuugu celinayaa inaan saanaa fiican waan kuugu celinayaa isaga iyo inta Soomaalida u joogta federaalka inay ka hadlaan way habooneed hadday ka hadli waayeen way ku eedeysan yihiin ha u badnaato macal inac jarka kililka madaxweynaha ka okay so aan soo dhaadhacna marka toobigana aan soo dhaadhacna meel kala dilaaday waxa ka dhacay hadda xisbiga dhexdiisa ka dhacay qabiilka ogaadeenka la yiraahdo aniga oo dadka kala saaraynin si aynu wax isula fahanno Soomaaligu language oo garanaya lagu wada hadalno qabiilka ogaadeenka la yiraahdo dhul ahaan intee inuu ka yahay baan aaminsan tahay wadanka population ahaan intee inuu ka yahay baan aaminsan tahay waxaan aaminsanahay iyo sida ay wax yihiin uu Ilaahay og yahay iyo sida propaganda aan isku difaacayo saddex arrimood baan aaminsanahay waaga saddex ma ba Amerika hal fikir ma Amerika tahay saddexdan aaminsanahay tii aniga markaa iidana maan ka qaadanaya sida adigu tabanta ku ahayd majority ku noqonayso qaadatay aniga markaan ka baqo inuu ogaadeen inuu yeesho isku dayayo waxaan leeyahay ma badna laakiin xaqiiqda markaan soo dhaadhaco percentage iyo 4% iyo 60 iyo waxan iyo ka bax majority haddii la sheego run marka la doonayo ogaadeen baa ka okay laakiin ogaadeenow sidii aad ummadda kale ku soo jiidan lahayd ama feer aad u noqon lahayd ka shaqeebaa meeshan taala haddaan la isxaqirinin waxa kaloo dhegayso waxa kaloo kuugu daraya meesha qabiilka ogaadeen baa majority-giisa lagu kombeer garaynayaa Soomaali oo dhan mise dhulkan Soomaalida Itoobiya ay degan tahay ogaadeenka degan haddaad Gaarisa iyo Kismaayo keenayso adaa ugu badan dee hadday dadka kale isu ka xulfaystaan Soomaalida kale oo dhanna waa laga badanayaa hal qabiil iyo 11 qabiil sida la sheegayo okay su'aal baan ku weydiinaa marka way ba yar tahay aad baan ugu faraxsanahay inuu wax fahansanaa tahay dhulka aynu deganahay ee Soomaalida reebel baa u badan macna ma sameynayaan waxaan rabnaa inaan gala degmooyinka dhulku ka kooban yahay waxaan rabnaa degmo walba qabiilka degan inuu isla sheegno haddaad dhulka ma taqaano horta si fiican baan u aqaanaa inta ay khusaysa walibana iyo inta khusaysa wax yarigaan arisman inta khusaysa ma dhulka deegaanku 93 degmo uu ka kooban yahay ma taqaanaa degmo walba iyo qabiilka degan ma haddaanan ku faanaynin waa waxaan ku baran karo toddobaad gudaheed inta khusaysa waxaan u idin oo ku sheegaya deegaankan ka soo jeedo iyo jigjiga area-deeda aad baan u aqaanaa laakiin adiga oon kula doodayo inaan iska soo qabsado 99 degmaba inta degta iyo sidoo kale yihiin waan aqaanaa kuma oranayo laakiin waa waxaan soo heli karo okay su'aasha labaad aan ku weydiinaya waa waxaan soo heli kara ma aha innaga sadooda soo taagan inaan isku soo laabanayna Ilaahay baa og wax marka aad doonayso waxa lagu saleeyaa deegaan degmooyinku sharci lagu doortay yay leeyihiin degmooyinka la iskama doorto population baa lagu doortaa dhulka degmooyinkiisa
haddii aadan aqoonin oo dhulkan kada aadan aqoonin Soomaalida kale inay ga badan tahay maxaad ku ogaatay marka waxaan ku ogaaday baan kuu sheegayaa markii degmooyinkan la sameynayay sad bursi baa la waday mooyaane meel aan degmo ahayn baa degmo loo magacaabay qabiil baana lagu magacaabay kowdhe meel degmo lantana looma magacaabin ayaa lagu nisahmaynaa kowdhe horta u kaadi markay mar sii jooji yaa magacaabay degmooyinkan kada intii dambe hadda Cabdiilay magacaabay mooyee degmooyinkan kada gobolka waqtiga la magacaabay iyo taariikhda la magacaabay ma haysaa gobolka degmooyinkiisa la magacaabay inay ilay way ka horeeyeen laakiin inay ilay imise degmo ayuu ku daray ma isweydiin war inay ilay kaadi halka ay dhig yaaqay inay ilay isku baan ku yiri intii hore baan isticmaalo su'aasheeda inaad fahanto isku day degmooyinka waddankeena iyo gobolada yaa magacaabay ma xukuumadii Xayla Salaasay ahayd ma Mingisti bay ahayd goorma la magacaabay ween okay xukuumadda Xayla Salaasay dadka inta degmooyinku way koobnaayeen xitaa 9 degmo ma dhaafinin gobolka Harar oo dhan awraaja gashi wixii loo dhan jiray baro waanan ka daaweynahay okay degmooyinka anigu aan kala doodayo waxa weeyaan waxaan imika la doonayo in wax lagu qaybsado ee laga dhigay Harooriska degmo Qarbeex degmo laga dhigay ayaan ka hadlayaa haddaad ka horeyso oo aad leedahay taariikh ka horeysay way kooban tahay oo waxa weeyaan wixii hore oo dhan waxba kama jiraan tusaale haddaan kuu soo qaada Dirdhabe oo gacanta Soomaalida imika ka baxday oo federaalku maamulo waxa loo dhan jiray gurgurana guraaja gaara guraaja awraaja baa loo dhan jiray oo macnaheedu tahay gurguro iyo wixii buurmadooda degmadeeda waa laga bedelo Ciisa xanaaqay waxa loo bedelay gurgurana Ciisa awraaja baa loo bedelay gurguraha iyo Ciisaha degmadooda loo bedelay way ka soo wareegtay maanta yaa gacanta ku haya waxa gacanta ku arisfan waxaan kala hadlayay faan 9 gobol oo hore u ahaan jiray 12 ba iska dhaafada jira 9 gobol hadalkayga inaad fahanto isku day oo hore degmooyinka ay leeyihiin iyo goboladooda goorma la magacaabay hadalkayga inaad fahanto isku day ما هي تاريخها ماشي مرن عنو كوما سو غلي شيك ما مرن maaha waxaad iska dhigtay nin xogogaaleh waxaad ugu doonaysaa xogogaalnimo waxaan ka wada hadlaynaa waa xogogaalnimo haddii aad xogogaal ahayn qofku nin xogogaal iyo nin aan xogogaal ahayn isma keeni karaan marka waxaan rabaa inaan war ima maqal wax yar ikaadi hadalka lama wadaaga caanaha la wadaagaay waxaan rabaa haddii aad xogogaal ahayn inaad ku doodin haddaad xogogaal tahay oo waddanka aad taqaano iyo degmooyinka inta ay ahaan jireen waxaa tiri waa la iska magacaabi jiray dawladda magacooda Itoobiya ay ahayd dad Soomaali oo waddanka haysta oo magacaabi jiray ma jirin ma waxaan aaminsan tahay dadka Soomaalida ah kale qabiilka ogaadeenka Itoobiyaanka magacaabahayay iyo boqortooyooyinkii waddanka soo haystay inay iyaga u hiliyeen miyaad aaminsan tahay marka waxaan aaminsanahay igama sugaysid waxa weeyaan doodii kolba dhinac baad u leexinaysaa ma waxaad doonaysaa inaan aniga kula murmo ku dhaw wax walba waan ogahay hadda ma waxaad igula yaabaysaa waxa aan qirtay aan ku yidhi anigu ma ogiyo waan soo baari karaa miyaad ka dhigaysaa wax eed amarkaa mise waxaad tiri dhul aan degmooyin ahayn baa degmooyin laga dhigay marka waxaan rabaa xaafadda aad leedahay minority bay tahay degmooyinkii hore ee dowladihii Itoobiya magacaabeen wixii haddii aan la isla dhigdhigin oo la isfahmin la isla keeni karo waa in aan sharci isku xidhno sharcina celinaya Itoobiya magacaawday boqortooyinka Itoobiya soo jiray baa degmooyinka magacaabay sharci bay ku salaynayeen ma waxaad leedahay qabiilka ogaadeenka degmooyinkii hore ee la magacaabay baa looga hilinaya Soomaalida kale maya degmooyinkaasi way jiraan laakiin imse ahaayeen aan isla qarano ma 9 degmo ahayn ayaan come on maya ma ahayn ana hadalkayga faan waxaan ku yidhi 11 kada iyo Cabdiilay waxaan uu magacaabay goboladan uu magacaabay iyo degmooyinkan oo dhan ka gudub intii ka horeysay 9kii gobol ee laynoo aqoonsanaa ee dhulka deegaanku uu ahaa degmooyinkiisu imisay ahaayeen yaase see loo kala deganaa faan yaaqay kamaan okay ma si fiican ma ku fahmay laakiin aniga hayoos galin markaan daacad ku noqdo wax daacada ka waramo hayoos galin degmooyinkii horena ogaadeen baa u badan sida ay u ahaayeen waxay doonaan aadan 10 20 waxay doonaan aadan degmooyinka ogaadeen baa u badnaa okay haddaad 10 guri leedahay oo lagaa kireystay 3 guri oo 7 bannaan tahay ma odhan kartid 10 guri baa kire loogu jiraa feri waxaad ku doodaysaa waa dulmi wax yar baan ku tusaya dhegeyso waxaad leedahay degmooyinkii hore ogaadeen baa u badnaa
degmooyinkan hadda ana waxaad leedahay ogaadeen baa u badan waa la iska magacaabay hadalkayga u fiirsa inaad eero inaad faa'iido waad iga weyn tahay nin aad iga weyn baa tahay taariikhda inaad haysana waa laga yaabaa laakiin waan kaa xogaansanahay sida inoo muuqatay hadda meesha ka muuqata degmooyinkan kada la dhisay kuwii hore haddaan kaa badnaa kuwana aan kaa badnahay oo aduguba aad qirayso waxaad hadalkaagii hore ku dartay oo aad ku doodaysaa marka aan anugu arrintayda hagaajisanaya saasaan ku dhahayaa innagu dad soomaali aynu nahay inaynu dulmi isku samaynana ma aha waxaad leedahay wax walba alaa marorsanaya waxaadna rabtaa adigu inaad dulmi ugu samayso aniga oo majority inaan ahay adii qirtay inaan ku dulmiya anigu ma rabo waayo dulmiga u raadinaysa ii sheeg laba goor marna majority baa tahay marna minority baa tahay waa inaad labada jeer fahantaa markaan markaan minority ahay waxaad minority tahay dhulka Ethiopia Soomaalida Ethiopia degan marka aad magaca ogaadeen gaar ula baxdo ee isku reebto Soomaalida kale oo dhan minority baa tahay okay dawaataynu ka doodaynay waan garan laadahay degmooyinka si aynu minority u garanno degmooyin iyo degaan Soomaha majority iyo minority ha waayahay adaa badan labada waa adiga ilaha adiga waa isxinahaye waxaadna ilaahay minority baa tahay معلمو ألف وحملة يا ألف أوصال يا بقى وحملة لما بعضها لقى مغلى بس خبتين هذا ده وانا إيديني المرة على مركع عن لبس أنت نسيش شيء وضحت لي ساموك تاني وأنكون يا أنت نسكا وقدر نكتو وعلم يسن أو فيري أفر بقول لي إحنا إيه تدوقف أصلا معنا إن دقي سنيسة هي أنت الشهر قريني صح أفر بقول لي إحنا أنت أوقف إن دقي سنيسة waxaad ku salaysaa intaa in ka sii badan oo kale oo sheer ku daawanaysana way daawanayaan dadku si ay inoo fahmaan dadkii degmooyin iyo gobol haddii anigu aan majority ahay oo leedahay majority baa tahay soomaalidii kale oo dhan markii laysu dayay anigiibaa majority ka adegaan ahaan haddii aad leedahay iyo degmooyin sababta salaynaysa inaad adigu majority tahay oo anigu minority tahay bal dadka u sheeg waa ku dheer waana kuu fasixa bal dadka qanci wax lagu qanco nin weyna sheeg اوكي markaan anigu doodayo nin weyn baa tahay cimri oo lagu dacayso ilaahay cimriga ay dheereeyaa la yiraahdaa ma ogtahay raali yar ahaada ilmo yaroon awoow hay baa meesha ku weeyay waraa آدم raali ahaada telefoonkan la bixiyo ku yaroon awoowaha baan lagu soo tuuray oo hooyadii ka soo cararayay waxa weeyaan haddaba xaqiiqda markaynu u soo noqono horta meeshan waxa dad wada doodaya haddaad aragto waa dad wax ka dhaxeeyaan laba aan waxba ka dhaxaynin doodi maba dhex mari karto soo moog degmooyinkan adigu aad ku salaysana waxa laga soo minguuriyay formulada laga soo qaatay ma xasuusan tahay mar ay Puntland tidhi degmooyin waxa lagu qaybsado baarlamaanka iyadoo og waqtigii siyaad bar iyo degmooyinka 84 degmee Soomaaliya inay u badnaayeen inta uu daaroodku degan yahay geemka waa la diiday waa tan imika Axmed sida iyo nimankan ka dhex dhacday ee gobolada sida loo kala degan yahay marka la eego majority-ga waxa qaadanaya ogaadeen reality-ga aynu ka hadalno dadkii kalena sas bay qaadeen way ka boodeen oo waxa la yiri gobol walba mid ha la siiyo sida waxan imika laga hadlayay ma fahanti marka waxa meeshan ka jira iyo wixii federaalku wato ama oramaha lagu sheego ama dad Soomaalidiida lagu sheego ama dulmidiida lagu sheego nin waliba sidoo doonaa u dhigo waxa laga cararayaa waxa weeyaan mataqaanaa gobolada hal simo si simanna waxa loogu qaybsado laakiin haddii aad leedahay majority baan ahay ayaan low oon anigu dhinacna kaaga qaray dhinacna aan diidan oo ku yiraahdo Kismaayo iyo Gaarisa igu soo talaabin dadka waa lagu challenge gareyn karaa laakiin dad baabuur ku soo rarto wadankiina documented ma aha wadankeena run marka la sheego ma documented by new fingerprint inta laga qaaday meel central data ay maynu leenahay sida Mareykanka ilaahay baan ku dhashay no wayan qofku maanta uu ogaaday noqon karaa markuu xanaaqana akishu noqon karaa taa xasuusno ma fahanti marka haddii aad leedahay annagu markii uu inay la joogay baanu mataawaqiyo qaadanay oo referendum hal la sameeyo annaga ugu badan
waa runtaa idinkaa ugu badanaya annagu maataawaqin weli ma baanaan qaadanba sidii ninkaa un looga cararayay realityga haddii loo soo noqdo waxaa weeye ninka wax maamuli kara ee dadku ay daba joogsan karaan ee si feera wax u maamuli kara ee faanka badan iyo afka xun hadduu iska daayo adigaad noqonaysaa laakiin dad ma haysataa dadka kale soo dhaweeyay baa meesha taallaan run aynu isu sheegay okay su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo adeer arrinta aan rabay waad iga qancin weyday laakiin waxaan rabaa sidan hadda aad u dhigayso hadal baad ku celcelisay afkaagaad aad ugu adkaysay waxaad leedahay dadka ma soo kasban kartaa oo dadka ma waxayn kartaa baad leedahay maamul ka dhaca waddankan kada 94tii dowladdii ugu horreysay cabdullaahi maxamed saadi dowladdii ugu horreysay kilalka labiya inaad la socotay in kale 23 wasiir baa la sameeyey ogaadeen sideed buu qaatay soomaalida kalena intaasaa la siiyey annagoo ka cararayna ee dadka kale maadaama majority ahay dadka kale ee sheegtaan intii ka dambaysayna weligeedii alle dadka dhulkaa degan kuma ayna qadino awood iyo ay leeyihiin ogaadeen ma qaadanin ma waxaad leedahay waa nala soo dulmiyey saskan kada hadda jira eed leedahay haddaad dadka soo celinaysa aad leedahay ku celcelinayso xaguu ka yimid xagee lagugu dulmiyey inaad ma waxaad taagan tahay dadka kale lama dulminin maad taagan tahay yaa dulmiyey xagee la isku dulmiyey ii sheeg dulumku waa laba marna waa awood qaybsiga iyo waxoo dhan marna waa afkaaga waxa ku badan anigaad hoos imanaysaa anaa ku xukuma anaa kule ogaadeen yaa tahay ogaadeen baad noqonaysaa taasi mayna dhimirka qofka wax u dhimaynin qof dhan oo wuxuu kusoo dhashay laga bedelayo feri riyaalkigan ka hadlaynaa wax yar dadka caalamka ku nool waxay dhahaan gaaladu majority has a role minority has a right aniga maadaama ood leedahay majority baa tahay rulkaana iskale inaan taa sheegana xaq baan u leeyahay hadday ku dhibaysan ku dhibaynina anu waxaan aaminsanahay iyo waxa sharcigu yahay iyo waxa uu dawga yahay kama leexdo ma kugu dulmiyahay anu waxaanay ii kaada horta ma inaan diyaaru meyi waxaan ogahay aan aaminsanahay nin soomaali oo walaalkay oon isku dannahay oon isku nabnahay oon isku dhulnahay inaad tahay waxaan aaminsanahay oo kale xaqaad leedahay inaan qaadanin oon xaqaaga bannaan dhigo maadaama laakiin ogow adiga waxaa la yidhi laangaab waa gaale maadaama oo minority aad tahay sida aad sheegayso anugu kuma dhihine inaan anugu ku xukumo oon majority ah iyo ogolow dhegaysa haddaba meeshan majoritygeed ku cararaysa iyo minority siduu kale yaaba ku sheegay ingiriisku markuu talyaanigu ama ingiriisku gumaysanayay dhulka ay yimaadeen ay gumaysanayeen ma majority ba ka hayeen mise minority ka jawaab gumaysigii soomaalida gumaystay ama talyaani ama ingiriis ama faransiis soo qaado dhulka ay gumaysteen marka ay gumaysanayeen ma maskax bay ku gumaysteen mise majority bay ka ahaayeen maskax baad u gumaysanaysaa miya maya jawaab horta maskax bay leeyihiin marka haddaad aaminsan tahay majority rule iyaa jira haddaad leedahay anna waxaan iiminahay maskax wanaagsan oo minority dadku minority yahay laakiin maskaxda majority ka ayaa ku gumaysanaysaa waayo dadkaagii ayaad isku dubaridi weyday jid waaqbaa dhinac u cararaya ku kalaa dhinac u cararaya maxaan kaaga baqaa marka anigu adigii baa iyaa kala daadsanay okay waxaad ku doodaysaa oo caddaysatay in aad adoo minority ah aad dad xaqiisa qaadato aad baan ku salaamaya waa maasantahay haddii alla waa maasantahay ninkaas uu caddaystay wuxuu yidhi anoo minority aan maskax kugu hogaaminayaa way u muuqataaba waa hadday kuu suurta gasho waa soo dhaweynayaa okay waan soo qabanaya okay keenadiid weerar ninka u qoran tahay qabso keenadiid weerar keenadiid weerar ninka u qoran tahay qabso keenadiid weerar ninka u qoran tahay qabso waxaan jeclaan lahaa soomaaliyay ninka doodahaya inuu doodo xaq buu u leeyahay nin kasta oo soomaali ah oo ku salaynaya laakiin ogow waxaad ku doodaysa waa in cilmi ku salaysan yahay degmooyinka adaa u badan gobolladii adaa u badan ninkan wuxuu igula doodahaya wuxuu yidhi wajeer iyo haddii lagu soo daro soomaaliya iyo adaa iga badan wuxuuna leeyahay degmooyinka adaa u badan bal su-aasha meesha taalle in la isweydiiye tahay ma etoobiya gobollada iyo degmooyinka dhistay ila innagu maynaa dhisan innagoo soomaaliya ma etoobiya inoo kala yidhi oo soomaalida kala xigsanaysi that's a question ma ka jawaabi kartaa
odaygu naftii baa haysay hadda baxsad buu ahaa marka waa sii daaye ninkii qancinaya ee waxaa ku doodi kara waxaa ninkii ka doodi kara ee sal u saarahaya aniga oo maskaxa kugu gumaysanaya oo minority marka waxaan soo wicin live baan ku jiraa 400 qof ay daawanaysa marka 5 qof aqeeya mudnaanta leh waan soo qabanaya marka hodan faarax gabadhay qoran tahay qabso haweenka soo qabanaya hodan faarax ay qabso hodan ay qabso هذا قبل اللي هذا اوكي باقي بسوي ذا وان كاتشري اوكي سوق قبل صاحب محمد هو نيك اللي هذا قبسه محمد هو هذا ردد قمر دودي كرانو بانا محمد هو نيك اللي هذا قبسه ضد دودي كرو واحد كذا حقاله كاميرا كوما فرا محمد خليفه قبسه محمد خليفه نيك اللي هذا قبسه محمد خليفه بل وكاسه سوماليدو هيا عدو وليgeed ba waxa ay ku doodayso carmeelaha ku sareyso السلام عليكم. وعليكم السلام يا له. عليكم السلام ورحمة الله. ساسا سلامة إسلامك. يور نعرس waxaan ku qosleey mataqaana. odayga wuxuu dhahay moogtay 10 nin oo ogaadeen oo sida tadii xabiibi shooye 10 nin oo ogaadeen ayaan aad ku jirto moogtay oo qabsan la. Si fiican. marka nin aftaan de hadalkii wala dhacay moogtay saacad dhan ma qoslay moogtay. waxaad sii daysaa arrinta hadda wax lagu sareeyey 30% baabalashin ahaan inuu ogaadeen ku 30% gobolka ka yahay 40% uu ka yahay dhul ahaan arrintaas eed u aragtaa in adeero horta waxaa jirta adigoo maartay nin weyn oo ilaahay aqoon ku siiyay aqlina uu ku siiyay oo inta waa maartay ku dhameystiray inaad indhaha isqabatay maartay indhaha oo maartay indhaha oo caadi ah oo ilaahay inuu kugu abuurin inaad indhaha isqabatay horta waa wax maartay horta dhulkan sida markaan aynu noqono 9 gobol maadaratay ogaadeen ay ka kooban tahay 12 gobol hadda Cabdi Maxamuud Cumar baa sameeyay iyaga xagga ay naga dhig 9 gobol ee ogaadeen loo aqoonsan yahay inaguna naqaano Ethiopia u taqaanay ugu duwan gashana markii la dhaho hadii boqolkiiba 30 bay Soomaaliya kale inoo lahayn boqolkiiba 25 ma garatay sabab waa gaabiye kala dheer inta kale ogaadeen baa degan marka arrinkii saas ah hadda maanta saacadan ay joogno maadartay aynu taaganahay inuu ku noqdo boqolkiiba 30 bay ogaadeen ku leeyahay ama 40 madaxweyne Mustafa oo arrinta qaatay isaga maxaa dhihi lahayd seedo aragtaa maxaa ku kalifay arrinta madaxweyne Mustafa waxaan aaminsanahay ninkan kadii ninka awood baa la saaray waa la awood batay Axmed Shido dawladda federaalka wata Ethiopia ogtahay oo waxa iyadu maadartay dadka u soo qortay madaxweynaha u soo yeedhisa ninkan horta waa nin aad u dadaala waa anu markaan xaq ahaan maartay aan dhankiisa ka istaago waa nin horta dadaal badan maadartay inta awoodiisa laakiin waa laga awood batay meeshan awood baa taala federaalka Ethiopia heed baa awood u dhigtay waad la socotaa waxyaalo fara badan oo dhiba iska jira gobolka sidaba Soomaalidan ayaa loo nin kur ka jira mooy nin kala Soomaalidan ma xukumi karo Soomaali سفيان marka hal anu Mustafa ninka Mustafa la hal baan ku eedayaa hal waan ku aaminsanahay سفيان halkaasi waa wax la dhaho habnugeel wax la dhaho oo ninku uu habnugeel yahay ma garatay waa saaxiibana meeshan kulli kuwa saaxiibana mur luuqay soo galo meeshan iga caayay gowde marka ninku uu habnugeel yahay laakiin xagga dadka maadartay xornimo badan dadka siiyay oo dadkii waa kan hadlay oo nin walba hada uu iska hadlay oo dadka leyntii baa laga taagay intaas aad buu u fiican yahay laakiin marka uu hadlay Cabdi Maxamuud Cumar ereygiisa si fiican u dhiibtaan oo leeyahay si fiican ta kale ninka la dhaho Axmed Shire waa wiil sidiisoo kala ah oo isna waa nin Soomaali oo isna waa nin Soomaaliya kama awood badno kama laan dheereysno kama aqoon badno
axmed shide marka uu daraba waxaan daawaday video laga soo duubay oo xisbiga uu lahaa oo lagu shirayay markaasuu axmed shide hadlayay xataa marka uu hadlayay mustafa ka daba hadlay marka uu horey soo hadlayay maadaama madaxweynaha gobolka yahay inuu cabdi maartay inuu isagu hadlahayd soo moogid maya xisbiga maadaama laga hadlayo xisbiga guddoomiyihiisa hadlaya taa iyada sharci weeye guddoomiyaha hadlaya madaxweynaha markii xisbiga arrintiisa la fadhiyo mustafa xisbiga memberna kama ahayn madaxweyne kilal ku yahay laakiin xisbiga dee nin baa madaxweyne ka ah si sharci waa sidaa weeye adeerow xisbiga waxa uu ku shirayaa dijiu ku shirayaa isaga iskala meeshu ku shirayay baa jira aad baan ku salaamaya waxaan soo qabanayaa nin fikirkaaga ka duwan haye okay waxaan u baanahay nin aniga fikirka aan aaminsanahay fikir ka horjeeda nin doodahayo oo igala doodaan rabaa xaafaddu ha iska joogto nin kale aan u baanahay nin kale oo fikirkayga fikir ka horjeeda yaan u baanahay nin fikirkayga fikir ka horjeeda wataan u baanahay waxaad leedihin soo qaban ogaadeenka dee ogaadeenka may wax kale oo lama haya maxaa soo qabtaa waxaad dhahdaa anaa fikirkaaga ka horjeeda isoo qabadhe anaa fikirkaaga ka horjeeda isoo qabaydhe shaafi hersi oo ku soo qabanaya shaafi hersi shaafi hersi oo kaamiradu way kaa xidhan tahay fikirkayga wax ka horjeeda oo isoo qabadhaha wallahi adeer anuu soodaanta maana keenin cabdullaahi dhabar ninka la yidhahdo bal soo qabso asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. sheekh waa ku salaamay fikirkaygaad raacsantahay mise waa ka soo horjeedaa نيوه فكر كذا طبعا وراعسنهاي سوى كل راعسنهاي لكن waxaan rabaa in aan wax u sheego dhalinyartan kale ee fikrada kale ciddiyoon qaba ee ama deegaanka calashan se kala saaraya ayaa waxaan rabaa wax yar inaan u fiyo waa gartay laakiin soo gaab 2 daqiiqo ku siiyo 2 daqiiqo 2 minutes okay 2 minutes okay waan ogolahay deegaanku waa 9 gobol iyo 52 degme ahaayeen si fiican haddii la yiraahdo ogaadeen 6 bay degaan 6 gobol 6 gobol bay degaan haa waa gartay haddaad rabtana waa kuu tirinayaa si fiican 6 gobolba si fiican markii 6 laga jaro waa 3 baa soo hadhay si fiican gobolka ugu degmada badanna wuxuu ahaa gobolka fiiqeed ama gobolka nugbeed buu ahaa waan ogsoonahay si fiican okay degmooyinka waa run waa la degaa dad fara badan oo qabaa'il oo kala gedisan baa degaa si fiican laakiin dadku waxay kala garan laayihiin lahaanshiyaha iyo degmada iyo dadka degan ee majority ka ah ogaadeenka degmooyin fara badan oo la dega jira laakiin majority bay ka wada yihiin dhammaantood inta lala dega xitaa majority bay ka yihiin si fiican dadku waxaa ka maqan marka kan ku salaynaya 40% dhulku calashaan population ahaan weeyaan maxaan ku dhahay waa dhulka 30%ina waa maxaan ku dhahay waa dadka si fiican ting calashaan waxaad u qiyaastaa oo keliya gobolka nugbeed iyo gobolka afdheer oo keliya population ku nool inta uu aad u qiyaasnay qof wax kala qiyaasan ku dheh waad maasan tahay marka aad baan ku salaamaya waa maasan tahay ay inta kaliya ku dheh ay okay ukaadi nin meeshan ay yidhahnaa kula doodahaye nin meeshan soo qabanaya oo yidhi anaa kula kaa horjeedee axmed maxamed mooto ninka la yidhaahdo soo qabso axmed maxamed mooto ilaahay waxaa lagu mahday anin baa kaa soo horreeyay weligaaba soo qabaan axmed maxamed mooto ninka la yidhahdo soo qabso wuu reject gareeyay ninkaas waad reject gareysay soo qabaaday tiri haddana waad jartay cabdisalaan sheekh cumar cabdisalaan sheekh cumar oo qabso cabdisalaan sheekh cumar axmed maxamed mooto jaaris baan ku siiyey waadna reject garaysay kuma soo qabanayo hal jaaris baan ku siiyey cabdisalaanow anuu qarsoodiga ma ogolin nin hadduu yahay ninku inuu bannaanka soo dhigo weeye nin isqarinaya anuu ma ogolin aan la doodo meel madow baan fadhiyaa adeer meel madow
السلام عليكم ورحمة الله. والله بكل وعليكم مدود السلام. أنا أيام لو أنا بكل مدود ما كنت هذا الكوا حلية وهذا الكوا أنت مرتدون اللي جش وصونا جابت في عن ما قرنا يسا si fiican وردوان السلام عليكم أنت كنت وطبا وحا أنا لا هاي ونقصوا جابنا يا أوجادين قبل كان أدوكم لحسابنا إنه سجال دقمية محيط دقمة على الدين أنا إن الحدن جرا أنا هاي من كوا حنقول شيء أوجادين بقى بدنا لسكم أنا هيستو ماشي si كو fiican anu degmo kama hadlayo ma garanaysa degmo la sansameeyey wax dad u sameeyey ma jeego laakiin waxaan sheegayaa majority-ga si fiican waqtiga iminka la joogana waaba adduunyada dimuqraadi wax la yidhahdo iyo doorasha lagu sameeya doorasho markay timaadana daa'iman dimuqraadiga waxa weeyaan waxa xukumaya waa majority si fiican so point ma intaas soo wax la yaqaan laba qodob soomaana sheegin si fiican ummaduna waa isku wada mid oo dad walaala aweeyo iswada isku dhiigahoo sidaan ognahay ba isku mid ah waxa meesha la doonaya ka maqan ee dhibaatadu ka jirtaa waxa weeye magaca ما أنزل الله بها من سلطان إلا يري إلهي ونعرك كسود جنا إنجليز باب بحية إثيوبيا بحية لأن أنت سكب الدشان مجا تذكر يكون الشيان أو توافق لإلهه إن الله بحيهم بوبهانته مركا أنا سك حكمتان وضدك إذا كويس تاي مجرت إيه عدالة حكمتان وما تصوح ماشي لا وحكي أنا ماركو هدي لكن لا يراو magaca haddaanu bixino magacan kada dhulka la yidhaahdo ee ingiriisi uu bixiyey haddaanu magaca dadku mana ogol yahay oo inaan xukunno ma ogol yahay oo cuqdada badaynayaan أنا ما يستو تاريخ وحش شيء سمع حرت لبا مجا بولا بحين كراي صدق مجا إنك مصر بعربته تراها إيجيبت بيقالده ترى وضمت بدن الصاد ساحل العاج وكلام مجد إيفري كوست بيسوب هذا الشيء مجا واحد دون مجا توافقه وحبت حلقة قفة كل دجان ما هتط بدن حلقة قفة كل دجان وسكان حركه مركب مجعنا وحوي ما أنزل الله بالسلطان أنا مجا ما هالجمينا وحنا هالجمينا أمت يدين تدي ما هالجمينا ورت تاسوي تهلو قالوا magaca haddii la iska bedelo magac tawaafuqa aad bixisood waddanka xukunto maxaad ku diiday adigu intaas ma iga jawaabi kartaa ingiriis horta topiga ha ka bixin hadda magac lagama doodayo magacaas waa case kale wey waa nada topic oo waqti dheer qaadanaya waxa weeye waxa dhacay weeye tiina waad ka jawaabtay aad baan ku salaamayaa ha way waxaan jeclaan lahaa okay axmed xasan axmed هذا الكاميرا كم فرد يعني هم كاميرا كم فرد سوق بدن بدن ساي أحمد حسن هو كاميرا كاحدا أحمد علي قري نقول لي هذا سوق بسوق أحمد علي قري هذا الماذا قبسنين جانس كاجا لمي أنا محن سميا مرك موقع عبد الله كلا هذا موقع عبد يقبس موقع عبد الله كلا هذا موقع عبدي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. توبك ملصق. السلام عليكم. توس ما يبقى ما دركتها. ما كاسك لكن واقع كهودن ويكا عطانو مالينيا. توبك ملصقتي. ها وانكم مغلاسين في عن وعدك هو ضعيف. أنا كم مغلان مالينيا. aad buu codkaagu u gaaban yahay may maqasho aniga ma lagu maqlo intaad baa soo noqo ma lagu maqlo halo anu waan ku maqlaa may maqasho adiga ninkaan lagu maqlo يلا مرة لبعض كل شيء هذا مرة بعض كل شيء هذا وحنا إذا قرض مرة أنا أنكم بقلة يسوع ninka aan markuu celiyay isugu wax yar ilaaliga ahaada
ها موجي وكوسو علي موجي وكوسو علي مرة بعد موجي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. وعليكم السلام أبتو. وكاغا سيتا هذه الضوف يعني. قبل لا سعودي. والله سؤال سبع مرة سعودي. أنا وحنا ملنا يا أبتو population كمر كلي هذا. بقول كيف أفرطن باريزوم بقول كيف صوت باريزوم. بقول كيف صوت أنا دولك واحد لقى يابا إن محوها دولك ودقوا قاعدين هذا إنه بدنيا كبدنيا سومالي ذا كله. سيفيان لكن عدد السكان الدين اللي هذا ضدك دقانك وحنو مرنا يا إننا كبدنين وادينكم. ضدك بدنيا. عددك على كبدنيين. هذا مثلا قبل جيجا مثلا قبل جيجا iyo gobolka Shabeelle iyo gobolka Afdheer gobolada laga badan yahay ay ka mid yihiin Soomaa waa gobolada ugu aad sukaan hadda degmada Wajaale iyo aw barra degmada la yiraahdo waa labada degme ugu dad badan marka waxa laga yaabaa hal degmo cadad sukaanka dega inay gobol dhan ka badan yihiin maxaa yeelay gobolada hadda مثلا gobolka Qorraxay iyo gobolka Dhagaxbuur iyo Fiiq iyo waa dad reer guuraa oo baadiye ah marka ballaarka iyo muxuu ahaa waxa laga yaabaa meelaha ay degaan reerku inuu ka badan yahay dadka kale dhulka ay degaan laakiin markii la yiraahdo cadad sukaanka iyo muxuu ahaa farabadnida deegaanka in laga badan yahay marka ha hey saas weey aad bagu salaamay aad iyo sidoo kale Soomaaliya waan soo koobayaa anu intaas kaga baxaya insha Allah waqti badan baan ku jiray waan idin salaamayaa salaamullah calaykum cafiya musaamax Soomaaliya waan salaamayaa aad baa mahadsantiin